gaariga waxaan ku saarnayn 4 shayaadiin. daqiiqad ka bacdi waxaana la gadoomay gaarigii. 3 shayaadiin way dhinteen, waxaana ka badbaaday aniga, waxaana ku soo badbaaday si mucjiso ah. daqiiqad ka bacdi waxaan ka soo kacay suuxdintii aan galay. walaal bal ila arka qisadan oo dhammaystiran. السلام عليكم والهليال اسكسون قد وعانا وناكسن وانيقو ولاشين هاني كانال كان قد ونيسان واكوين هاني اوفيشال فضلان مقال كلاي قري هذا نقو عصب تاي نقو صوبير وكمين نقو أصحابتينا سبسكرايب نقو ديرا قلي كان بلال كنفرو سيادو نقو داوضا وقوري داوضا مقال كستان صودقنو وادكم هاسان تاهي maanta waxaan iisidaa qiso aad iyo aad u cajiib badan. qisadeennuna sida tan ayay u dhaxaysaa. qisadani waa qiso dhab ah, waxaana ka sheekeynaya wiilka ay ku dhacday. wuxuuna leeyahay markii aan jiray 6 sano wali maskaxdayda iisan si quman u kala go'in. waxaa isoo wajahday caqabad iiga timid qoyskayga, midaasi oo ah hooyaday iyo aabahay way kala tageen, midna midkiisa kale wuxuu galay guur. aabahay xaaska uu qabo maysan ii wanaagsaneen oo markasta waxay ahayd mid igu qayliso. hooyaday markii aan aado, hooyaday ninka ay wada joogaan asagana sidoo kale wuu igu qaylin jiray. waxaan noqday cunug yar oo maskaxda ka daalan, waxaan ku dhex sugnaa meel mugdi ah. tani waxay ii horseeday inaan saaxiib la noqdo dad xunxun. aabahay markuu i weydiiyey halkay jirtay, waxaan ugu jawaabi jiray hooyo ayaan jiray. hooyana markay i weydiisay halkay jirtay, waxaan ugu jawaabi jiray aabba ayaan jiray. balse xaqiiqda haddii laga hadlo, waxaan ahaa mid dhunsan oo meel mugdi ah ku dhex jiro. waxaan ahaa mid dhibaato aad iyo aad ugu weyn ku sugan. balse sideen uga soo baxay dhibaatooyinkan? habeenada ka mid ah waxaan waqti qaadanay aniga saaxiibaday. waxaan cabnay qamro aad iyo aad u fara badan, maskaxdeennana may joogin. waxaan isku wada raacnay inaan bannaanka u baxno si aan u soo qaadanno jawi degan. markii aan dhexda soconnay, dhammaanteen madax ayaan gaariga kala soo baxnay si aan u qaadanno neecaw macaan. gaariga waxaan ku saarnayn 4 shayaadiin. daqiiqad ka bacdi waxaana la gadoomay gaarigii. 3 shayaadiin way dhinteen, waxaana ka badbaaday aniga, waxaana ku soo badbaaday si mucjiso ah. daqiiqad ka bacdi waxaan ka soo kacay suuxdintii aan galay. balse xaqiiqdii waxaa jirtay suuxdin kale aad iyo aad u weyn aan ku dhex noolaa, midaasi oo i bartay noloshayda mar kale. waxaan dareemay cabsi aad iyo aad u fara badan, midaasi oo ah in aan dhinto aniga oo sarqaansan, waliba oo ku jiro sarqaan midka ugu xumaa, hooygaygana uu noqdo naarta. waxa aan dareemay in Allah uu jecel yahay maadaama uu iga badbaadiyay dhibaatadaas. anna waxaan jeclaaday Allah, waxaana go'aan ku gaaray in aan Allah dambaan ka caraysiinin. waxaan u toobad keenay Allah si aan ugu mahadceliyo, sababtoo ah wuxuu iga badbaadiyay 2 dhimasho, midaasi oo ah midda gaariga iyo midii sarqaannimada. markii isbitaalkan ka soo baxay, waxaan go'aansaday inaan wada gooyo xiriiradii aan lahaa oo idil. waxaan soo galay masaajidka si aan u akhristo kitaabka quraanka. balse xaqiiqdii markaan quraanka akhrisanayay, waxaan qalbiga ka dareemayay raaxo iyo dharan. tani maysan ahayn wax dheeldheel ku salaysan sidii markii aan sarqaansanaa oo kale. maalinta ka bilowdana waxaan saaxiib ka dhigtay quraanka, sida Allah subhanahu wa ta'ala uu ku sheegay quraankiisa. yaa ayyuhalladhina aamanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.